sakada loo yaqaano zakaat ulfidr zakaat fidriga zakaat ulfidri macnaheedu waa maxaa zakaat fidri loogu bixiyey zakaat ulfidri waa la yidhaahdaa sababta loogu bixiyeyna waxa weeyaan waa afdara yufdiru fidran waa waktigii laga afuraya ramadaan ee la dhammaynayay oo xadiidka rasuulka waxaa ku jirta salى اllahu عalayه wasalam farada rasuulu اllahi zakaata alfidr wuxuu waajibiyey sakaatulfidrigii marka waa sakadii ku beegnayd waktiga laga afurayo ramadaan ee la ciidayo waxaa kaloo la yidhaha zakaatulbadan sakada jidhka oo sakada qaybna xoolaha laga bixiyaa qaybna jidhka tani waa tii jidhka zakaatu ru'uusna waa la yidhaha sakada madaxyada zakaatu riqaab sakada qoorta laga bixiyana waa la yidhaha waxaa la waajibiyey sanadii labaad ee hijrada oo sakada xoolahana waktigaasunbaa la waajibiyey ramadaanna waktigaasaa la waajibiyey ciidahana waktigaasaa la jideeyey axkaam badan beder kadib sakadan iyada ah marka xukunkeeda la eego waa faral oo sadaqada midina waa faral midina waa sunni sadaqooyinka faradka ah ayay ku jirtaa waxaanay u taagan tahay farxad lagu faraxsan yahay faralkii lasoo dhammaystiray ramadaan waxaa saxiixa ku sugan ma xadiid saxiixa oo ibnu cumar uu warinayo waxa uu leeyahy cabdilaahi farada rasuulu llaahi salى اllahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan nebigu waxa uu waajibiyey sakada sakaat fidriga marka ramadaan laga afuro saacan min tamrin aw saacan min shaciir waa 2 kiilo iyo dheeraad heed ah ama timira waxa uu ku waajibiyey qof kasta oo xora ama addoona qof kasta oo lab ama dhadig laakiin muslimiinta ka mid a sakadan xigmadda loo jideeyey waxaynu ka faa'iidaysan karnaa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana 2 xigmadood mid ka midii bulshaday u dan tahay mid ka midina qofka laga bixinayo ama soomanba sidaana waxaa caddeeya xadiidka nebiga ka sugan min xadiid ibni cabaas waxa uu nebigu yihi ibnu cabaas waxa uu leeyahy farada rasuulu llaahi salى اllahu calayhi wasalam zakaata alfidri duhrata lisaa'im min allagwi wاlrafath wa ducmata lilmasaakiin sakaat fidriga nebigu uu waajibiyey iyada oo ilaahay uu ku nadiifinayo qofkii soomanaa hadalkii xumaaya ka dhacay iyo kii dembiga ahaa iyo bilaa macnihii ayaa ilaahay uu kaga nadiifinayaa soonkiisa ayay ka dhigaysaa mid taabagalahoo safaysanoo way shaandhaynaysa gurma degdegana waxay u tahay dadka fuqarada iyo masaakiinta idan markaa fuqarada iyo masaakiintii bulshadiiba ka mid tahay oo danbay u tahay qofkii soomanaana danbay u tahay sakadan iyada ahi yay ku waajibaysaa ee laga bixinayaa macnaha waxaa laga bixinayaa qof kastoo muslima macnaha kii qaangaadhay iyo kii yaraa iyo kii wallaa iyo kii miyirka qabay qofkuba hadduu muslim yahay way ku waajibtay haddii loo helaya ha laga bixiyo ilaa culimmada qaarkood ay yidhaahdeen kol haddii muslimiinta oo dhan laga bixinayo ilmaha uurjiifka ah ee caloosha ku jirana waa laga bixinayaa cuhmaan ibnu cafaan axmed ibnu xambal ayaa maqaaladaasi ka timid laakiin culimmada islaamku waxay u badan yihiin inaan arrintaasi daliil lahayn ilmahan ilaa uu ifka usoo buxuu dhasho lagama bixinayo kumay waajibin sakadan iyada ah laa yushtaradu fiiha الnisaab waxba looma shardi uma aha inuu qofku xoolo badan haysto oo saka uu ka bixinayo ee mid xoolihiisa saka ka bixinaya iyo mid xoolo aan saka lagu lahaynba haysta iyo mid aan waxbaba haysan waxaa loo eegayaa un maalintan ciidda iyo habeenka ciidda wax masaariiftiisa dheer inuu haysto xisaabkeedu waa intaa waa nebigu muslimiinta oo dhan buu ku xukumay muslimiinta oo dhan baana laga bixinayaa waxaa la bixinayaana dee marka sakadii kale loo eego way iska yar tahay
قفك إنه حوله بدن هيستا شرط ومعها سكذا يضع الدين المؤجل لا يمنع دينته هذا وقت لا قفك كما هو شوكسني سواء ما أرانا يدين بالله يقول له سكات فطر بحين معه لكن دينتي كل هذه أي وقت لا وهذا عندك دق لوجد دونين وبحين يسكات فطري دينته بدنا وقت بالله لا بدنا يبكال لقولي دق وكلر كلاجوها است ده كلر كلاجوها استو سكات فطري واتكه الرئيسينيس لو حق بني آدمه لكن كل هذا وقت لا سكات فطري واتسكب بحينيس ما هو القدر الواجب قدر كواجب كينو بحينينا وائمس قدر كواجب كحديث كصحيحة وحكسوغا ساع وحا كلان وقت جي النبي وحلقو ميسان شري او كسمايسنا قري ايو كسمايسنا oo wuxuu eegaa dhiilkeenan xoolaha aynu ku maalno qoriga ah xararafka la yiraahdo dhiil qorigaas oo kale waxa waxaan u qaadayay 2 kiilo iyo badh meelaha culimada qaar kood waabay ka sii yara kordhiyaan oo 3 kiilo ay sheegaan laakiin marka dib loogu noqdo 2 kiilo iyo 176 gram meelahaas ay ku qiyaasan saaci Madiina markii la miisay ee garaamada loo rogay meelihii laga helay saaca su'aasha isweydiinta leh waxa weeye miyaa laga kordhin karaa mise waa inaynu intaasun ku qiyaasno mee waa laga kordhin karaa waa cibaadada dhinaca dhaqaalaha la xidhiidha kordhinta way aqbashaa sidii sakada xooluhuba kordhinta u aqbalaysa oo sakada xoolaha haddii neef lagugu leeyood mid ka shilis bixiso lagu odhan maayo kaayagii keenoo shilayska naga celi waqtigii nabigana way dhacday sallallahu alayhi wasallam nin baa bixiyay neefkii lagu lahaa mid ka shilis asxaabigii qaaday wuxuu yiri kan la iima soo dirin war aniga quudayo oo ku darsanaya qaad buu markii nabiga loola tagayna waa qaaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka waa cibaado aqbali karta kordhinta halka cibaadooyinka kale aanay aqbali karin kordhinta oo waxyaabo ay kaga duwan tahay baa jira cibaadooyinka kale oo waa cibaado maaliya fidiyadii soonkaba markuu ilaahay ka warramaya wuxuu aqbalay in la kordhin karo faman tatawwaca khayran fahuwa khayrun lah fidiyadii soonka markii uu ka warramaya wuxuu qofka khayr kordhista isaga khayr u tahay sakadan iyada maxaa lagu bixinaya raashimada lagu bixinaya waa noocee raashinka lagu bixinayo waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu bixin jiray waa inaga soo tilmaanay waa timirtii waa baasha la yiraahdo heeda waa sabiibka aqidka waxa la yiraahdo oo caana booraha kuwayalahaas lagu bixin jiray salafku waxyaabaha ay ku bixin jireen waxa kamid ah haruurka arabakhida sareenka wayalahaas lagu bixinaya iyo durrada baasha la yiraahdo waa iska durra shaamiya wal caadiya waa haruurkii sidaa daraadeed waxa ay culimadu halkaa kala soo bixeen quutul qaalibka in lagu bixinayo quudka raashin ahaan loo isticmaalo ee dhigaalka gala marka waxa meeshii ka baxaya khudradii ma noqonayso mid lagu bixiyo laguma bixinayo wixii sharaab noqda ama cabitaan sida sonkorta iyo wixii lamida su'aasha 11aad waxay la xidhiidhaa hal yajuuzu ikhraaj alqiima inta kugu waajibtay raashinka qiimadiisa ma la bixin karaa culimada islaamku waxay u badan yihiin maya lacagta lama bixinayo ee waxa la bixinayaa u raashin waxa la weydiiyay Ahmed ibn Hanbal markaas waxa lagu yiri ma lagu bixin karaa lacag marka wuxuu yiri imaamkaasi khilaafu sunnati rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam sunnihi nabiga khilaafsanto raashin lacag laguma bixinayo sakaat fidriga waa in raashin lagu bixiyaa marka ninkii ardayda kamid ahaa ee wax weydiinaya wuxuu yiri hadda Umar ibn Abdul Aziz madaxweynaha muslimiintu wuu qabaa sida in lagu bixin karo markaas wuxuu yiri bal hadalkii nabiga ku sheegay adiguna hadalkii hebel baadii sheegaysa war meesha ma qabata buu yiri anigu markaan ku yiri nabiga yiri inaad tiraahdo hebel baa yiri marka xadiidkii ibn Umar buu soo dariishaday farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam saa'a nabigu raashin buu waajibiyay
sidaasuu nebigu yihi ilaahayna wuxuu yihi buu yihi aiicu allaha wa aiicu rasuul ilaahay iyo rasuulkiisa aqbala marka hebel meeshaa inaga dhig madaahibta saddex ka mida iyo jumhuurulculamaaba sidaasay qabaan abu xaniifa oo ka mida madaahibta imaamulbukhaari aynu garanayno saxiixa qoray sufyaan thawri oo isaguna fuqahadii aan madhabkooda la qorin ka mid ahaa raggaasi waxay qabaan in lagu bixin karo lacagta oo tanoo qura ma ahee waxay qabaan sekada in lagu bixin karo wixii miskiinka u dana ama maslaxadiisa iyo faa'iidadiisu ay ku jirto oo xataa ta geela iyo ta adhiga iyo ta beeraha intaba lagu bixin kara lacag ayay qabaan oo waxaanay leeyihin sidaasaa miskiinka u faa'iido badan arrimo dhowray ku doodayaanoo sekadan iyadahay xagga tawqiifka loo eegi maayo tacliilkaa loo eegayaa bay leeyihin cibaadadii aan la bedeli karaynin maahae waxbaa laga bedeli karayaa xagga sida aslaxa marka la eego oo waa halkii aynu ka soo warramaynayo waxay daliishanayaan cabdillaahi ibnu mascuud oo yeman aan idhaahda mucaad ibnu jabal oo yeman uu nebigu u diro sekadii ka soo ururinaya marka wuxuu leeyahay halka ay iga dhiibi lahaydeen firin raashin ii dhiibi lahaydeen waxaa keentaan alkhamiisa wallabiis dharka keena dharkaasaa idinkana idiin dhib yar fuqaradii iyo muhaajiriintii joogay madiinana u wanaagsan marka asxaabigu nebigu u diray saw kaa bedelay bay idhahdeen qiimihiisa qaaday marka ciladuu ka eegayo wuxuu leeyahay dhinacanaa fuqarada u fiican buu leeyahay si kale kolka looga eegana waxay kaga duwan tahay cibaadadan maaligii tii kale ee la gudanayay taqbalu niyaaba maca alistidaaca niyaabana way aqbashaa oo maalan soomka cid uma diran kartid wakiil kaa noqota haddaad kari karayso xajka haddaad tegi karayso cid naa'ibo uma samaysan kartid oo wakiil kaa noqota salaadiina dee hadalkeeda badaa laakiin sekada adiga oo bixin karayaad qof u dhiibi kartaa soo bixi baad odhan kartaa waxay kaga duwan tahay agoonka waxyaabahaasoo kale lagaba rabo oo soomkii iyo dee salaaddii iyo kumay waajibin laakiin sekadani way ku waajibtay taasna miday kaga duwan tahay wey siyaadana way aqbashaa sidaa daraaddeed in la qiimeeyo qiimaheedii lagu bixiyana way aqbalaysaa bay leeyihin arrimahaasay raaciyeen sidaa waxaa ku raacay ibnu taymiya raximahullah iyo axmed ibnu xambal laftiisa aqwaashiisa mid ka mid ah oo wuxuu leeyahay sakaatu fidriga laguma bixinayo laakiin sekada xoolaha haddii miskiinka ay u fiican tahay in lacag iyo qiimo lagu siiyo qiimahaasaa loo raacayaa oo u fiican buu leeyahay marka qowlkaasina culimo badan oo casriga ayaa xoojiyo waxay leeyihiin mararka qaarkood waxa dhacda faqiirka haddii la siiyo raashin inaan lagaba iibsanin ama qiimo jaban lagaga iibsado marka lacagtaasaa uga faa'iido badan laakiin waxaynu rajaxaynaa qowlkaa ah in fuqarada iyo masaakiinta lagu siiyo raashin kaasaa dee axwal xagga cibaadadana u dadaal badan innagana wadanka marka aynu joogno dad badan oo raashinka u baahan baa la helaya oo fuqarada iyo masaakiinta ah qodobka 12aad goormaa la bixinayaa sekadan waxay culimmadu isla waafaqsan yihiin sekadaasi inay waajibayso sida xadiidka ku sugan marka laga afuro ramadaan habeenka la yidhaahdo waa ciid faral bay noqotay waa faral wakhtigiisii la gaadhay sidaasay a'immadu u badan yihiinoo wakhtigaasaa la bixinayaa waxaase sii fiican goorta waagu dilaaco mar hadduu waagu dilaaco subaxa ciidda wakhtigaa weeye sidaa daraaddeed baa xadiidka bukhaari min xadiidi abi saciid alkhudri waxa uu leeyahy kunaa nukhriju fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama yowma alfidri saacan min طacaam waxaanu sekadaa bixin jirnay maalinka ciidda marka waagu baryo ayaanu bixinaynayo wakhtigeediibu markaa caddeeyey xadiidkaasi maalinkaa uu sheegayaa waa maalinka markuu dee ciidda waagu baryo su-aasha kale waxa weeye miyuu bannaan yahay in la qadimo iyadoon maalintii ciidda la gaadhin haa culimmadu way u badan yihiin qaar waxay leeyihiin 2 cisho ka hor ayaa la bixin doonaa maalinka ciidda 2 cisho ka hor
sida markaa ibnu cumar iyo rag kaleba ay warinayaan in asxaabtu ay bixin jireen 2 cisho ciidda ka hor 2 maalmood ee ramadaanta u dambeeya laakiin imaamu shaafici ayma kale waxay leeyihiin sakadani tii xoolaha ay la mid tahay oo xoolahana waa la qadimi karayay sanadka dhexdiisa fuqarada waa siin karaysa iyo dadkii lahaa oo 2 sababood bay ku waajibtaayo sabab waxa weeyaan ramadaan inuu qofku joogo sababka labaadna waa inuu ciidda gaadho labadii sababood mid ka mida baa la hayaa oo in ramadaan ay soo gashay marka ramadaan dhexdeeda waa la qadimi karaa leeyahay laakiin sida ugu fadliga badan waxa weey subaxa ciidda inaad ku dadaasho oo aad bixiso siduu nabigu ahaa sallallahu alayhi wasallam su'aasha kale waxa weeyaan yaa la siinayaa oo waxaynu naqaanay sakada xoolaha 8 qola aayadu sheegto loo qaybin jiray marka tanna ma 8dii qola inuu u qaybinaa mise qola kaliya lagu kuusaya la siinaya waxa la siin karaa fuqarada iyo masaakiinta dadka baahan casrigii nabigana sidaas ay ahayd culimaduna sidaas ay u badan yihiin waa nabigu wuxuu ducmatan lil masaakiin masaakiinta raashin u tahay masaakiinta u tahay quudiya waxay qaadanayaan qoliyihii 8 aha kuwaas baa laga sheegay maalmahana inay aad u ciidaan ay farxaan baa la doonayaa qoliyaha fuqaradu sakada iyada ah waxa isweydiin leh dadka aan la siin karaynin laba siin karayo dadkii sakadaba loo diiday qofkii gaalka ahaa kii maal qabeenka ahaa caruurtaadii waalidkaagii xaaskaagii dadka ma siin karaysi wasakada xoolahaba kuwii aanad siin karayn qodobka 16aad waxa weeye sakadan iyada ah ma la naqlin karaa meel kale ma la geyn karaya oo faamiligaagii ama qaraabadii miyiga jooga ama dal kale jooga baahi badan ay hayso ma loo gudbin karaya ha waa loo naqlin karaya baahida qaraabadu ay qabaan ama bulshada qaarkood intoo la isku ururiyo waad u diri karaysaa su-aasha u dambaysaa waxa weeye haddiiba ay ku dhaafto maalinkii ciidda maxaa la yeelayaa dadka qaarkood baa ilaawa qaarkood baa jahli ku dhacaay oo moodayaba inaan ciidda la bixinaynin dee waa faralo waa la qallaynu fadayn ullaahi axaqu an yuqdaa nebigu wuxuu uhi sala allahu calayh wasalam deynta ilaahay baa ku habboon in lasoo qalleeyo oo haddii ay dhaafto maalintii ciidda wixii ka dambeeya sidaa ugu fiican waa qabla salaa in la bixiyo haddii salaada ka hor la bixiyo waxa weeye waa saka la aqbalay buu nebigu haddii salaada ay ka dambaysana waa sadaqatun min asadaqaat waa sadaqooyinka ka mid aho faralkii unbaa kaa dhacay laakiin ajrigii wanaagsanaa heli maysid kol haddaad salaadii daba maraysay qofkii markaa ka dhici maysee sakaatu fidrigii aanu bixinin maalintii ciidda waa bixinayaa oo qalun bay noqonaysa marka qodobada dhowr iyo 10 ah baynu ku soo ururin karnaa axkaamtii sakaatu fidriga allah inagu anfaco camalkeena iyo cibaadadeedana allah aqbalo waajibka aynu gudanaynana wanaag allah inaga abaal mariyo aafaadka wareegayana ilaahay hayna weydaariyo waxaynu haynana allah inoo barakeeyo wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhana rabbik